wiil yar oo ku noolaa bannaanada qabo ee dhulka Mongolia ma lahayn qasri mana lahayn ciidan xitaa mararka qaar ma haysan cunto ku filan oo uu cuno habeenadii qabowga badnaa wuxuu madaxa saari jiray dhagax adag halkii uu barkin ka heli lahaa laakiin hooyadiisu waxay mar walba ku odhan jirtay ninka sabirka bartaa maanta adduunka ayuu hogaamin doonaa berri wiilkaas yar magaciisu wuxuu ahaa Temujin laakiin markii dambe dunidu waxay ula baxday Genghis Khan. ستغيب عني لسنة واحدة وأنت تعرف كيف تهتم بنفسك صحيح؟ تيموجين tani waa sheekada boqorkii la oran jiray Genghis Khan laakiin ka hor intuusan noqon boqorkii uga cabsida badnaa taariikhda wuxuu ahaa ilmo faqri iyo silic ku koray Temujin wuxuu dhashay xilli ay qabiilooyinka Mongolia istili jireen qof walba wuxuu ahaa cadow qofka kale saaxiib maanta kula jooga berri seefta ayuu kugu soo qaadi karay aabihii Yasugiya wuxuu ahaa hogaamiye qabiil wuxuuna ku riyoon jiray in wiilkiisu maalin noqdo nin weyn laakiin qadarku qorshe kale ayuu watay markii Temujin 9 jir ahaa aabihii ayaa la sumeeyay wuxuuna geeriyooday isagoo safar ku jira hal daqiiqo gudaheed noloshii qoyska oo dhan way burburtay qabiilkii aabihii hogaamin jiray ayaa ka cararay waxay ka tageen hooyadii waxay ka tageen carruurtii waxay ka tageen iyagoo aan lahayn cunto iyo xoolo waxay yidhaahdeen qoys aan nin lahayni wax faa'iido ah ma leh hadalkaasi wuxuu qalbiga Temujin ugu dhacay si daran laakiin hooyadii Holian ma quusan waxay carruurteeda ku tidhi ninka xoogiisa maaha inta uu haysto ee waa inta uu u adkaysto marka wax walba ka lumaan maalmihii xigay qoyskiisii waxay cuni jireen xididada geedaha waxay qaybsan jireen kalluun yar mararka qaarna gaajo ayay la seexan jireen laakiin Temujin qalbigiisa waxbaa ka dhex ololayay wuxuu arkay sida dunidu u liido qofka tabarta yar wuxuu bilaabay inuu fahmo cashiro adag dunidu ma xasuusato inta jeer ee aad dhacday waxay xasuusataa inta jeer ee aad kacday sanado yar kadib dhibaato kale ayaa dhacday Temujin waxaa qabtay qabiil cadow ah waxay qoortiisa saareen qori weyn oo alwaax ah waxayna u kaxeeyeen sidii adoon dad badan ayaa u malayn lahaa in sheekadiisu halkaas ay ku dhamaatay laakiin geesiyaasha runta ah musiibooyinka ayay ku bilaabaan habeen mugdi ah Temujin wuxuu go'aansaday inuu baxsado wuxuu galay webi qabow wuxuu ka dhuuntay mugdiga habeenkii wuxuuna ka baxsaday qacantii cadowgiisa maalintaas wiilkii yaraa wuxuu noqday nin aan quusan Temujin wuxuu bilaabay inuu ururiyo saaxiibo mid qabiil nin wuxuuna ku dhaartay maalin ayaan midayn doonaa dadkii kala qaybsamay qofna ma rumaysan qofna ma filayn laakiin taariikhdu waxay isu diyaarinaysay inay dhaliso nin dunida bedeli doona in magaciisu gaari doono boqorro nin ay ciidamadiisu gaari doonaan meel aan hore loo arag laakiin taas weli lama gaadhin si aad ula socoto qaybaha xiga fadlan channelka subscribe saar like na saar siina share garee qisooyinku waa xikmad xikmaduna waa hanuunkuna waa janno